يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، taariikhda waa isla 25 bishii 6 2020. waxaan gelaynaa qaybihii kale ama qaybtii 12aad ama xalaqadii 12aad ee su-aalaheenii riyooyinka markaa ahaa. halkaad nagala socotaan waa youtube-ka sheekh xasan ibraahim ciise. waxaan idiin rajaynaynaa khayr fara badan dadweynaha nagu xiran, inta nagu soo xirmi doonta. waxaan ilaahay uga rajaynaynaa subxaana wa tacaala dembi dhaaf inuu ilaahay siiyo, miisaankooda xasanaadka ah inuu ilaahay ugu siyaadiyo wanaagga iyo khayraadka. riyadaani waxaan la sii wadaynaa qaybtii hadda aanu ka baxnay 11aad, tirada intii aanu maraynay. riyadii 15aad ayadoo qaybo kale ah. qaybteeda koobaad, mar hore waxaan ku riyoon jiray uu yiri qofka soo qoray, mar badan hooyaday oo dhimatay oo nuurka baxaya. maasha allah. hadday hooyadu nooshahayna camalka saalixa iyo wanaagay tilmaamaysaa. hadday horey u dhimatayna waan iska bishaaraysanaynaa. ilaan bishaaradu waxaa lagu tilmaamaa ru'ya saalixa ee qofka mu'minka loogu riyoodo amase uu markaa ku riyoodo. marka insha allahu tacaala khayr iyo wanaag fara badan ayaan markaa u rajaynaynaa. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaan sadaqaystay sad dahab ah. riyadii markaas ayaa igu dambeysay. sadaqada riyada dhexdeeda ma ku bixinin, si run ah ayaanana u baxshay. markaa maxaa ku fasiri kartaa? way fasiran tahay camalkaa wanaagsan ee aad ku riyootay haddana aad bixisay. riyooyinka marka kamid way isfasiraanoo si dhab ah iyo markaa isu fasiraan. taasaan markaa rajaynaynaa inay tahay riyada 15aad qaybteeda labaad. waxaan ku riyooday aniga iyo wiilkayga oo marayna meel buundo ah oo dheer meel buundo dheer ah oy ka bannaan tahay meel yar oo cagta la saaro. haddii lugta la heli weysid waad dhacaysaa. wiilkayga ayaa iga hormaray, wuu maray si dhaqso ah. maasha allah. wuxuu igu dhahay isoo dabagal aniga. markaa waan maray si dhaqso ah anigane. maasha allah. markaan dhaafnay meesha waan kala leexanay aniga iyo asaga. meel kaabad ah ayaan fariistay. waxaan arkay gabar. waxaan ku dhahay kaalay gacanta i qabo. maxaad ku fasiri kartaa? waxaan ku fasiri karaa guur wanaagsan oo wiilkaagu uu guursan doono insha allahu tacaala. hadduu waxaas leeyahayna inay u wanaagsanaanayso nolosha iyo dhaqanka iyo waxyaabaha lamidka ahna ay u noqon doonto sahal iyo suhuula ilaahay idinkii. saas inay markaa u noqon doonto taasaan ku fasiraynaa. sababtuna waxay tahay raacitaankaad israacdeen meeshii uu kaaga hormaray ee uu dhaqso ku maray waa sahal muraadkiisa uu ku gaarahayo. adigina waad martay insha allahu tacaala. waad kala leexateen. adiga reerkaagii baad aaday, asagana reerkiisii uu markaa aaday. fadhiga aad meesha fadhiisateed gabarta gacanta i qaba leedahayna afadiisa inay tahay ayaa markaa suuragal ah. waa riyadii 15aad qaybteedii labaad. qaybteeda saddexaad waa isla riyadii 15aad yaa qaybo kala lahayd. qaybteeda saddexaadna waxay tiri mar kasta waxaan ku riyoodaa hooyaday oo dhimatay anoo raadinaya. hooyo ku raadinaysa waay ayada. hooyada oo dhimatay, hadday horey u dhimatayna duco unbaad u samayn iyo mtaqaanaa baryo alle iyo sadaqaad. hadday nooshahayna way ku dalbaysaa.
hadda way nooshahay bay tiri maasha allah. waana waayey weyntaa iyo qaybtaa dambe oo hooyo intaad raadisay aad weysay waa cibaado yaraan. xusniga iyo biriga iyo wanaagga yaa loogu talagalay hooyo in loo sameeyo. hooyadii wakaa markaad raadiso aad weysayna cibaadadii baa yar, waa qaybta dambe. taana cibaadada aad iyo aad u laba jibaar, u laalaab, ilaahayna ugu dhowow subxaana wa tacaala. riyada 16aad sheekh waxaan ku riyooday hooyaday oo nool oo isla joogno ayaa waxaan ku riyooday gurigeena hadda aan degannahay oo mas weyn soo galaya, albaabka hoostiisa ka soo galaya. hooyo fadhigay fadhisaa, maysan arkin aniga marka salaada duxada soo dukaday ayaan arkay maska oo weyn oo rooga hoostiisa ku jira. markaasi waan qayliyey. hooyo fadhigay fadhisaa, qur-aan ayay akhrisanaysay ayaan arkay. kadib in aan qabto hooyo fadhiga fadhido qur-aan akhrisanayso ayaan arkay. kadib inaan qabto ayay rabtaa. waxaan dhahay hooyo ka kac, ha qabanin, wuu weyn yahaye maskaan. intaas sii dhahayay hooyo wadnahu ka galay. ana dhahaya hooyo dhex galay maskii. markaas ayay idhahday hooyo, markaas ayay idhahay hooyo afka dhiig ka keentay. hooyo waan dhintay, ani waan ooyaa. sheekh khayr badan allah ku siiyo. maxay tahay riyada ayadana? riyadaas ayadana dhiigga riyada dhexdeeda ama qofka afka ka yimaada riyo wanaagsan ma aha, riyo fiican ma aha. waa xumaan ama waa xan, waa markuu afka ka soo baxo, ama waxaan wanaagsanayn oo afka qafkiisa ka yimaada. xanuun waa lagu fasiraa, geeri waa lagu fasiraa, dhiigga afka ka imaanaya. marka insha allahu tacaala adigana adkaarta badso, hooyana saasoo kale haddii markaa ay nooshahay. muddo yar kadib waxaan haddana ku riyooday isla hooyaday oo nool isla joogno ayaan riyo waxaan ku arkay aniga waan maqanahay ay leedahay. markaa la isoo wacaa telefoonka, waxaa la yidhahayaa hooyada wadnaha istaagay. waa naxay, aniga oo naxsan ayaan soo kacay. tii hore yay la macno tahay, waana kuu fasirnay. wixii dhib ahna ilaahay hanaga badbaadiyo. riyada 17aad. assalaamu calaykum sheekh xasan, allah ku barakeeyo. wacalaykum assalaam, allahuma aamiin. oo ilaahay jannatulfirdowsa ha kugu casuumo. anoo jiifa waxaan ku riyooday aniga oo hor taagan albaab xiran. waan garaacay albaabkii. waxaa iga furay nin dhar caddaan ah xidhan oo igu yiri soo gal. kadib waan galay. waxaan kale oo arkay nin kale oo isna dhar caddaana xiran. wuxuu fadhiyey meel fooq ah. kadibna wuxuu iisoo tuuray mafaatiix, macnaha furayaal isku xiran. waan qaatay oo waxaan geliyey jeebka surwaalkayga. kadib ninkii kale ee albaabka iga furay ayaa i kaxeeyey. wuxuuna i geeyey masaajid oo rog casaan ah goglan. kadibna safkii ayaanu galnay. si salaada aanu u galno, shiiqow ii fasir, jazaaka allahu khayran, mustafe cusmaan. riyadaanita koowaad, qaybta dadka dharka caddaankaa wata waa diin iyo ku camalfal sunnada lagu camalfalo. haddaad aragto qof dhar caddaana wata, haddaad aragto nin dhar caddaana wata, taasay markaa tilmaamaysaa, arrintaa ayay markaa tilmaamaysaa. sidaa darteed ayaa waxaa loo baahan yahay qofku inuu aada u adkeeyo kuna socdo sunnada nebiga. maxaa soo haray? mafaatiixdii iyo furayaashii. mafaatiixdii furayaasha lagu soo tuuray waxay tilmaamaysaa sir qarsoon ayaad ogaan doontaa insha allah. meel unba wax ka qarsan yihiin, waxaana waa lagu muftaaxayaa, waa lagu furayaa. qaybta dambana qaybta hore aan soo fasirnay ayay markaa tilmaamaysaa ku dhaqanka diinta, salaada, khayrka iyo wanaagga ku socodkiisa.
intaasna waa riyadii 17aad. riyada 18aad. assalaamu calaykum sheekh xasan, allah kugu casuumo jannatul firdaws alaclaa in shaa allah, allahuma aamiin. wacalaykum assalaam baan ku leeyahay. waxaan ku riyooday anoo meel taag ah jooga, dhulkana uu barwaaqo yahay. waxaan ku soo socday hoos. markii hoostii aan gaadhay, macnaa hoos baan usoo socday, markaan soo gaadhay waxaa iga soo baxay il biyo saafi ah oo caddaan ah, camuudeeduna ay tahay camuud caddaan ah. kadib waxaan galay beer weyn dheh oo ka baxaysa geedo dhaadheer oo cambe lafta ah. waxaan cunay lafta ku jirta xaydha cad ee laga sameeyo saliidda enerjiinka. waxa badan kamaanan cunin. kabacdi waan soo baxay oo waxaan soo galay magaalo si aan u soo noqdo. ii fasir riyada, jazaaka allaahu khayran. riyada waa riyo khayr badan. qofku markuu meel dheer kasoo daadego, si degdegna usoo dego, wax barwaaqana uu helo, qof muraadkiisii uu rabay gaarahaya ilaahay idinkii subxaanahu watacaala. taas waa lagu fasiraa. waxaa kaloo lagu fasiraa qofku xal ka bedelan xalka uu ku jiro, oo xal ka bedelan uu gaari doono, xalkaa ka duwan oo kii hore ka fiican insha allahu tacaala. waxaa kaloo suuragal ah bay yidhaahdaan shaqo wanaagsan ama wadiifo fiican qofka inuu helaayo ilaahay idinkii. intana waa wada bishaaro. riyada 19aad waxaan ku riyooday, waxaad dhahdaa waa riyadeydii labaad. sheekh khayr badan allah ku siiyo adduun iyo aakhiraba. shaykhuna ilaahay ha ku xafido adduun iyo aakhiro. su-aasha labaad oo riyadeyda oo aan ku weydiinayo waxay tahay, waxaan ku riyooday aniga iyo riyadan 19aad waxaan filay inaan hore usoo marnay. sheekhuna allah ku xafido adduun iyo aakhiraba. su-aasheeda labaad waxaa riyadan aan ku weydiinayo, waxaan ku riyooday aniga iyo sheekh cabdirashiid sheekh cali suufi iyo sheekh doctor maxamed cali saalax oo isla fadhina. waxaan filayaa riyadan inaan horey markaa usoo marnay. riyada 20aad. assalaamu calaykum sheekh, khayr badan allah ku siiyo, aamiin. waqtiyada aada noo hurtay weli ma guursan, layma qabo, gabar ayaan ahay. waxaan ku riyooday aniga oo ari cad oo badan oo buuxiyey dhulka. waan arkay riyada dhexdeeda. waa maxay fasirka riyada? waa zawj baa la yiraahdaa iyo awlaad baariyaal ah. riyooyinka ama rida lagu riyoodo riyo aad iyo aad u fiican waaye. marka nin wanaagsan, awlaad wanaagsan, taasaan markaa kugu fasiraynaa. ilaahayna ha kuu sakhira in shaa allahu tacaala. riyada kale ee xigta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu sheekh xasan ibraahim ciise, ilaahay ha kaa abaalmariyo. inta hamiyad iyo waqti aad ku bixisay fasiraada riyooyinkeena iyo walaalaha kula wada barnaamijka ee kula daadihiya. sheekhow, waqti aan sii fogeyn waxaan ku riyooday intuu nin iqabtay uu igu riday bohol oo ceyl mashiin u samaysan. waxaa ku jiray mashiinka dad kale. kadib waxaan ku dhahay ninkii oo i kor taagan, maxaa bohosha aada iigu riday? wuxuuna iigu jawaabay, halkaas ayaad ku jiraysaa. kabacdi waxaan ku jawaabay oo aan ku idhi, ilaahay ayaa iga saari, maasha allah, ilaahay baa iga saari doona meeshani. waxaa dhacday inay albaab leenkaygii furmay, halkii igu toosnayd waana ka baxay albaabkii. waxaan u tegay ninkii i xidhay oo aan ku idhi, maad arkaysaa inuu ilaahay iga soo saaray bohoshii? kadib intuu naxay uu sare u joogsaday ayuu faash igu soo tuuray ama faas.
waan iska qabtay faashkii, waxaan dabadeed aan ku tuuray isagii, waana ku dhintay. Kadib hurdadii ayaan ka soo kacay. Waad mahadsantihiin. riyooyinka noocan oo kale gobolkood waxay noqdaan riyo shaytaana, axlaam, macnaa shaytaan ayuu noqon karaa. waxay kaloo noqon kartaa qof kuu maleegaya shirqool iyo dhibaato inay jirto, kadibna ilaahay kaa salaamaynayo subxaanahu wa tacaala. marka taasna markaa way noqon kartaa su-aashii 21aad ama riyadii 21aad. waxaan ahay gabar. habeen ayaa waxaan ku riyooday nin aan wada soconay oo aan ka saayo. waxaan wada galnay guri albaabkiisa duug uu yahay. wuxuu qabay dhar wada caddaan ah. markaan guriga soo galaynay waan ka saayay, laakiin markaan soo galnay waan garan waayay. guriga afkiisa hore waxa uu ahaa cidlo, waana ordayay, asagana wuu isoo bursaday. wuu iga hormaray. markuu iga hormaray waxaan aragnay meel naq iyo doog ah oo wada cagaar ah ayaan imaaday. kadib wuxuu i dhahay, ku soo dhawow, gurigan waa gurigaaga waaye. wuuna sii jeedaa oo wejigiisa ma arko. meeshana meel qubuuro ah, laakiin doog iyo cagaar ah oo aad u qurux badan ayay tahay. marka sheekh, riyadaasi maxay noqon kartaa? haddana waxaan ahay xaas, waxaana ii jooga gabar. ninkaygana waxa uu qabaa aniga iyo xaas kale. habeen kale ayaa waxaan ku riyooday sheekh gabadha layla qabo, anigoo meel wada fadhino, dhar isu eg wadano. gurigiisa ayaan kursi ayaan ku fadhinaa oo isku wada eg. caadi ayaanu u wada sheekaysanaynaa. marka labadaas riyo maxay noqon karaan? shaykhana khayr allah ku siiye. qaybta hore waa nolol wanaagsan insha allahu tacaala, sida hadda ku nooshahayba. nolosha wanaagsan la tilmaamay waa nolol isfaham ah, caruur ilaahay siiyo qofka subxaana wa tacaala. taasay markaa tilmaamaysaa. amaa gabadha naag lala qabo oo isla fadhiyaan oo isku kursi fadhiyaan, sida aad sheegtay, khayra maxmuud waaye. riyo lama hadiyo ma aha. khilaaf bay tilmaami kartaa. waxay kaloo noqon kartaa inay soo jiido hami iyo mashaakil xagga nolosha ah. taana markaa way noqotaa. waa dad laysla qabo markay isku yimaadaan. laakiin wixii dhib ah ilaahay hanaga haayo. adigana adkaarta qaybtaa dambe aad uga badso oo ilaahay ka magangal. riyada 22aad. assalaamu calaykum sheekh, allah ku xafido. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. allahuma aamiin. adigana allah ku xafido. gabar saaxiibtay waxay ku riyootay ayadoo la guursanayo oo nin aad uga da-weyn guursanayo. faraati ayaa keen laygu yiri. dadkii meesha joogay waan keenay faraatigii. waan guursaday anigoo ka xun oo murugaysan. allah iska tala saartay, iskana ducaystay. ayaan isdhahay, allah wax walbo waad weydiisatay oo khayr ah ayaan dhahay. waxaan dhacday jimaac ayaa dhacay. waxaan arkay dhiig yar. kadibna guri weyn oo sariiro badan yaalaan. anigoo fiirfiirinaya ayaan ka soo kacay hurdadii. sheekh, maxay noqon kartaa? jazaaka allahu khayra aljazaa. zawaaj mubaarak ah waay. guur haddaad geli doontana waa guur barakaysan. awlaad badanna ilaahay meesha ka keeni doono, bacdamaa sayrar fara badan oo meesha ay yaalaan aad daawanaysay. waa kuwii awlaadaadu ay ku seexan lahaayeen insha allahu tacaala. riyada 23aad. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. waan ku salaamay sheekh, waan kaa qaaday. walaal, adiga iyo sheeqaba waa idin salaamay. 2 riyo ayaan rabaa in la ii fasiro. ilaahay khayr fara badan allah idin siiyo. waxaan ahay ardayad.
dugsi sare soo dhigatay, ganacsigan bartay, qurbahana ku nool. 1 sano ka hor waxaan ku riyooday anigoo dad meel isugu keenay oo sida macallin camal u sharxaya casharkii iskuulka laga soo dhigay, maasha Allah, oo ku saabsan ganacsiga iyo qaybihiisa ama qaybaha uu kala baxo. Haddana xalay isla riyadii oo kale anigoo jooga meel wax lagu gadayo. 2 ayay ahaayeen. qofna meesha Allah Ilaahay wuu u barakeeyey. Waxa uu gadayay. Qofka kalena qof khasaaray ayuu u ekaa oo murugaysan. 2 shay oo kala duwan ayayna gadayeen. Aniga waxaan isku dayayay inaan caawiyo qofka khasaaray. Sida sameey. Sida u soco si aad macaamiil fara badan u heshid ayaan dhahayay. Aniga beec mushtar malihi. Riyada dhexdeeda ma ku lahayn. Marna mana dhihin qof ganacsi ku mashquulsan shakhsi ahaantayda, laakiin waxaan jeclahay mar walba wuxuu Ilaahay i baray inaan walaalahay uga faa'iideeyo oo cilmigii aan bartay diinta ama maadigaba miday noqoto igu koobnaanin. Sidoo kale waxaan ku riyooday macallinkayga dugsiga oo noo muxaadaraynaya. Arday dugsiga joogta ayaa dhahaya, macallin, xadiidkaasi aad sheegtay sidaa ma ahan oo waa sida. Macallinka ardaygii ayuu bursanaa. Aniga ma ogi macallinka inuu xadiidku qalday iyo in kale, maxaa yeelay wax yar waan ka fogaa goobta muxaadarada, si fiican uma maqlin. Jazaaka Allahu khayr. Iisoo ducee sheekh, Ilaahay inuu diinta i fahamsiiyo, qalbigaygana diinta ku sugo. Insha Allahu tacaala diinta Allah ku fahamsiiyo, qalbigaagana Ilaahay ha ku sugo. Waxay tilmaamaysaa qof ummadda anfacaya inaad noqon doonto. Waxa kaloo lagu tilmaamayaa oo riyadu ay firta kugu fiiqaysaa maadada inaad u badan tahay. Dhanka diintana gaabis inuu markaa ka jiro. Bacdamaa wixii diinta aan ahayn ee ganacsigii wixii kale aad dhex gashay, ummadaad uga sii faa'iideynaysay, aad ku dhex caawinaysay riyada. Xadiidkiina aad maqli weysay macallinku akhrinayay, fogaasho aad ka fog tahay darteed. Idan u soo dhawow diinta, barashadeedana laba jibaar, xoogna ugu sii soco. Insha Allahu tacaala Allahna ku xafido. Riyada 24aad. waa riyo aad iyo aad u dheer sida aan arkayo ama aan filayo, laakiin qaybaha dambe ayaan ku soo socodsiineynaa. meesha inoo joogta insha Allahu tacaala. dadweynaha waxaan leenahay halkaad nagala socotaan waa YouTube-ka Sheekh Xasan Ibraahim Ciise. ku soo dhawaada qaybtii fasiraada riyooyinka. Ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqi wanaagga hana waafajiyo. idinkana rabbi khayr fara badan iyo wanaag fara badan Allah idin siiyo. وبالله التوفيق. الله سبحانه وتعالى أعلم.